Weligaa ma kugu dhacday inaad qof raadinayso ood garan weydo halka uu joogo? Ma istiri mararka qaarkood haddii aan hal sawir hayo ma heli karaa qofkan platformskiisa kala duwan sida Facebook ama ma maqashay website sheegaya wejiga qofkaad raadinayso oo aad ka heli karto internetka oo dhan. Maanta fiidiyogan waxaan ku tijaabinaynaa habkaas annagoo isticmaalayna website kala duwan si aan u aragno haddaba muuqaalkiina follow iyo like waa dhankiina fadlan na siiya. Laakiin muuqaalku waa for educational purpose. La soco haddaba imika haatanna aynu bilaabno muuqaalkiina. Oo haddaba waxa ugu horeeyaad sameynaysaa waxay tahay waa inaad soo kicisaa browserkaaga. Browserkaaga soo kici qof walba sidoo kale telefoon ku isticmaali kartaa laptop imika waxaan ku isticmaalaya laptopka laakiin aad ku isticmaali kartaa telefoon iyo waxaad haysatidba. Okay, browserkaaga soo kicinaysaa markaad soo kiciso bartan markuu keeno waxaan ku qoraynaa bartaas face check id baan ku qoraynaa face check id space baan uga dhaxaysiinaynaa halkaa dot geli halkaana spaceka waan ka baabi'inaynaa waxaan sameynaynaa face check id dot halkaa u dhaxaysii kaana spaceka ka baabi'i. Okay, enter baan siinaynaa bartan haddaba markuuna keeno waa kan website-ka haddaba website-kan doonaynaa inaan qofka ku ogaano sawirkiisa waa kan. Laakiin mid ogaada waajib maaha markasta inuu nii shaqeeyo laakiin markaad mataqaanaa ayaad doonaysa inaad qof ogaato at least inaad sawirkiisa hesho aadna lambarkiisa aanad hayn waa aduu ku caawin karaa website-kani uuna mataqaanaa kuu sahli karaa inaad hesho. Okay, let's do it. waa kan haddaba face baa ku qoran soo ma jeedin qofka haddaba facekiisa bartaa baan ku search garaynaynaa. Imika aniga waxaa suuragal ah in haddaan dee bartan aan soo gudbiyo in uu YouTube igu qabsado laakiin qof caan ah aan soo raadinayaa sida Diddy oo kale Diddy let's do it Diddy ninkaa Diddy la yiraahdo caanka baynu soo raadinaynaa. Kadib markaa waxaanu siinaynaa search internet by face baanu siinaynaa. haye understand taa buu qoranayaa agree baad dhahaysaa. Okay, waxay nasdhaafi taageergee nasdhaafisay uu raadinaya ka searching buu siinayaa daqiiqadahan yar sugan inta linkkaas uu dhammaanayo uu raadinaya search buu siinayaa. So waa kan ninka Diddy la caana markaa halkan buu ku keenayaa waxaad heli kartaa maxay ahadanay Facebookgiisa, Instagramkiisa, YouTubekiisa waxaas oo dhan baad qofka yar heli kartaa oo qofka dabcan baa u search baad siinaysaa. Badanaa dadka Facebook adeegsan Soomaalidu sidoo kale mid ka warhaya passwordadiina ilaashada markaste gacantan ku dhiga. Website-kiina labaad amba website-kiina xigay waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa habka loo beddesho identity-ga amba shakhsiyadaada internetka. Sanadihii u dambeeyay ciyaartan qof walba ciyaara amba bulshada ama dadka aad bay u barteen. Shakhsiyadaada aad ka beddelinaysaa internetka aad bayna muhiim uga tahay inaad baratay habka loo beddesho shakhsiyadda. Okay, maxaan uga dan leenahay? Waxaan uga dan leenahay waa inaad baran kartaa qaabka daqiiqad walba aad ku beddelan karto shakhsiyadaada. Sidoo kale waxaa meesha ka maqnayn habka loo beddesho email-kaaga. Intaasoo dhan baynu ku qaada dhigi doonaa muuqaalkan xigay. Laakiin mar labaad follow-da naga ilaawina. Okay, sidoo kale markaan rabno inaan mataqaanaa isla barta ku noqonaynaa waxaanu sameynaynaa barta baan ku qoraynaa fake name generator waa kaaniga hadda barta uu qoran yahay click baan siinayaa. Okay, waa kan website-ku u soo baxaya. Anu laakiin guys mid baa ka cabsi qabaa Facebook dhowr jeer buu digniin siiyay waxaan jiray YouTube-ku sidoo markaa mataqaanaa anu waan yar taabanayaa adaa lagaaga baahan inaad si dhex gasho waayo aad cid ku qabsanaysaa ma jirto kaas la socday dareema. Okay, waa kan website-kan waxaa la dhahaa fake name generator adiga oo jooga isbaabi kartaa abti inaad isbaabiso xogtaada dhan barta ka baabisaa
laakiin mid buu ku shaqeynayaa dee wuxuu ku shaqeynayaa waa intaa Soomaaliya kuma jirto waayo dalkeena dee adduunyada saan aragtay ugama caansano xataa baasaboorada saas oo dhan mataqaan muhiim uma nihin laakiin almuhim waa inaad barataa aqoon waa inaad barataa weydii maalin maalmaha kamid ayuu ka caawin doonaa haddaad United States tagto amba haddaad tagto mataqaanaa dhulka kale uu ka caawin karaa adiga laakiin muhiimadda aan u sameyn waxay tahay inaad barato qaabka mataqaanaa hidden isku saaro ama hackers isku baabiyaan amba maaragtay ay u baabiyaan xogtooda ay u samaystaan identity cusub oo maaragtay aan la garan karinba so marka qaarkood xataa miyaanad arag maxay ahaydeen qof dhowr mataqaanaa samaystay ID card oon la garanaynba dhacdooyin badan baa jira oo aad maqasheen kulli qisooyinka marka qof kastoo maaragtay doona inuu bedesho xogtiisa bartan buu ka bedeshaa waa ka phone numberkii birthday-ga xilligu dhashay emailka sidoo kale waa muhiim weydii emailka laftarkiisa waanu qaada dhigi doonaa oo waanu samayn doonaa master cardkiisa waxaas oo dhan bartan baad ku samaysaa taraanki numberka so qofka bartaan buu gelinayaa xogtiisa auna maaragtay hagaajin karaa halkana free tools baa ku qoran tools iyo staff yar buu ku siinayaa yaro maaragtay laakiin inta ugu muhiimsan waxa weeye waa name waa magaca weydii okay sidoo kale waxaan sameynaynaa markaad doonayso inaad emailkaaga aad bedesho emailka marka sidoo kale waxaan sameynaynaa isagana temp baan marka ku qoraynaa temp mail sax kaas noo soo baxay waa kan website-kan weydii marka sida aad ugu jiido bartan buu ku keenayaa email buu ku siinayaa adiga email kuu gaar ayuu ku siinayaa so laakiin mid la soco maxaa ku qoran waa temporary weydii daqiiqad kasta wuu isbedeli karaa may adu wuxuu ku haynayaa meelaha 2 saac 3 saac meelahaas laakiin emailada qudhoodu muhiimadda loogu leeyahay dadkan badanaa Soomaali email ma isticmaalaan laakiin emailku waa muhiim weydii emailku waa waxyaabaha dhan mataqaanaa deep webka lagaga hadlo weydii dark web iyo deep web soo kala hadalnay muuqaal hore haddaan soo daawo okay emailka baad copy garaysanaysaa markaad copy dhahdo laakiin mid la socda waad ku isticmaali kartaa telefoon iyo laptop haddana laptop ku isticmaalaya la socda okay emailka baad soo gelinaysaa meeshaad doonayso kadib bartan buu ku keenayaa code markuu soo dhaween code bartan baad keenaysaa halkan baad keenaysaa code iyo waxaad u baahan tahay oo dhanba okay guys gabagabadii waxaan leeyahay haddaad doonayso inaan soo badiyo muuqaal noocan oo kala dee iga dhisa mataqaanaa followdii like-ta ina dhiirigeliyo kunka followers na gaarsiiya aad iyo aad bay mahadsantihiin